mar labaad waxaan ku baaqayaa annaga galmudug ahaan gogol baan dhigaynaa, diyaar baan u nahay howlaha ka taagan muqdisho iyo baydhabo inaanu xalinno. magaalada gaalkacyo aan dhigaynaa gogol ilaahay hadduu yidhaahdo. guud ahaan dalka soomaaliya waa degan yahay, marka laga reebo xiisad soo cusboonaatay oo dhanka dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ah. waxaan rabaa wax yar inaan ka iraahdo. waxaan rabaa aase galmudug ahaan inaan baaq nabadeed u dirno labadaa dhinac. waxaan rabnaa waddanka soomaaliya waa waddan fragile, waddan dilicsan weeye, in loo turo. khilaafyadaas oo kale waa wixii dowladdeennii soomaaliya ee dhexe naga burburiyey. waa mataqaanaa hadday sii socoto hawl naga burburin karta nabadda iyo wanaagga iyo horumarka soomaaliya ee maanta socota. marka inaan gacantayna ku suulino, culummada waa inay u kacaan, odayaasha dhaqanku waa inay u kacaan, siyaasiyiinta wanaagga jecel inay arrintaa u kacaan, in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ay miiska wada hadallada ku soo laabtaan. dowladda galmudug diyaar bay waxay u tahay kaalinteeda inay qaadato. horena waa u qaadan jirtay marka saas oo kale waddanku uu qalqal galo ama xilliyada kale guurka la gaaro. wataan halkan gogol dhigi jirnay, aan isku keeni jirnay dhinacyada ishaya. marka mar labaad waxaan ku baaqayaa annaga galmudug ahaan gogol baan dhigaynaa, diyaar baan u nahay howlaha ka taagan muqdisho iyo baydhabo inaanu xalinno. magaalada gaalkacyo aan dhigaynaa gogol ilaahay hadduu yidhaahdo, oo muxaafid iyo mucaaradba aysan marti ku ahayn oo ay dareemayaan. haddii taa socon weydana dhuusamareeb baan dhigaynaa. labada dhinacba diyaar baan u nahay ilaahay hadduu yidhaahdo. waxaan rabnaa waddankeenna maantay meel fiican buu ku socdaaya inuusan nagu burburin. xilliyadii soomaaliya loo soo jeeday oo caalamka uu goglaha noo dhigi jiray oo nala danayn jiray oo shirarka naloo qaban jiray waa soo dhaaftay. ma dareemaysaan caalamka maanta meeshuu marayo? suudaan waad aragtaan, yemen 10 sana ay dowlad la'aan tahay waad aragtaan. cid shir u qabanaysa iyo cid wakhti gelinaysa haba yaraatee ma jirto. war hooy soomaaliyey, intaan yarta aan haysanno aan ku mintidno. war intaan yeysan naga duwin. cid dambe oo shir carta noo qabanaysa iyo cid dambe oo isu kaaya keenaysa haba yaraatee ma jirto. annagu aan ilaalsanno. ma joogno meeshii aan carta joogno, ma joogno. maanta dowlad baan nahay, alxamdulilah. waddanku horumar badan buu gaaray. midnimadeenna aan ilaalsanno. baaqii xalay ee madaxweyne xasan sheekh ee ahaa in goglaha nabadda ay diyaar yihiin, mataqaanaa waa soo dhaweynaynaa. madaxweyne cabdicasiisna waxaan leenahay adigana sidaasoo kale miiska wadahadalka ku soo laabo. waddankan wada jir waxaan ahayn oo wax looga keeni kara haba yaraatee ma jirto. ciidan la dhuray iyo ciidan la diray iyo mataqaanaa hadday wax tarayaan waa horey wax noo tari lahaayeen. haddii xoog la isku maqoorin karana waa la soo arki lahaa. waa u wada joognay. waxaan ahayn gogoshaas in la iskugu yimaado, laga wada hadlo differensiga ama waxa dadka u dhexeeya. waxaan ahayn oo xal lagu gaari kara haba yaraatee ma jirto. waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh doorkiisa odaytinimada ahaa ha qaato. cabdicasiisna sidaasoo kale waxaan rabaa lafta gareenino asagana sidaasoo kale miiska wada hadalka ku soo laabto. annaga dowladda galmudug ahna diyaar baan u nahay inaan dhexdhexaadinno. weligeenna annagu dowlad ku nool baan ahayn. qaybta lafaha isbitaalka guud ee muqdisho waa mid ka mid a qaybaha ugu caansan ee isbitaalka, wuuna ka howlgalo doctor cilmi yuusuf, ahna khabiir daaweynta iyo kabidda lafaha, isagoo si gaara ugu helan bixinta adeegyada daaweynta iyo qallimada lafaha. waxaa ka howlgala dhakhaatiir takhasus leh oo khibrad u leh daaweynta iyo dhaawacyada lafaha, xanuunnada la xiriira kalagoysada iyo xaaladaha kala duwan ee caafimaad ee lafaha. adeegyada waxaa ka mid a daaweynta dhaawacyada, qalliinada lafaha iyo adeegga kormeerka joogtada ee lafaha si loo hubiyo caafimaadka bukaanka. qaybta lafaha waxay leedahay qalab casri ah oo loogu talagalay baaritaannada iyo daaweynta jijabka iyo dhaawacyada kala duwan ee soo gaara lafaha si loo dejiyo soo kabashada bukaanka. isbitaalka guud ee muqdisho ee Nasruddin Baarbax, daryeelkaagu waa rabitaankeenna.